runtii muuse biixi maanta si maqaam sare ah oo aada u qurxoon baa loogu soo dhoweeyey airboortkii caalamiga ee Bole International Airport. muuse waxaa laga soo dejiyey qeybta madaxweynayaasha la aqoonsan yahay laga soo dejiyo roogii baa loo dhigay jiray weliba markii shirka midowda Afrika la qabanayo madaxda madaxweynayaasha Afrikaanka ciidankii salaanta siin jiray oo calan indhaha marka ay gaar waxa weeyaan ay ugu haysaa waxa dawaan kaga baxaya hadalka waan dheeriyay waxa runtii de sharaf u ah waxa weeyaan Somaliland sida maqaamka sare ee maanta waxa weeyaan de bulshada reer Ethiopia ay soo dhaweysay iyo dowladda Ethiopia maanta waxa weeyaan de jamhuuriyad ahaan maanta waxa weeyaan Somaliland u soo dhaweysay qoliyaha reer Soomaaliya waxa leeyahay warnimada waxa weeyaan waxba de Somaliland xagina haddii alle Ethiopia ku xadgudubtay Ethiopia maanta xiriir baa idinka dhaxeeya ciidankeedii waxay joogaan maanta Soomaaliya joogaan de waxa weeyaan iyaga si gaar ah waxa weeyaan ula xiriira laakiin annaga Ethiopia waxaan aragnaa dal aan jaarnahay oo dhaqaale naga dhaxeeyo oo weliba xiriir amni naga dhaxeeyo waxaan runtii aan rajaynayaa madaxweynaha Somaliland inuu shirka maanta uga faa'iideysto amniga oo hadda waxa ogtay Saciid Suldaanow labadii laakiin dhexdheer dad fara badan oo siyaasiyiin oo asaaka wada hadalay iyo qudhoodu waxay sheegayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanu hadda lagaba yaabo inuu arrimahan qayb ka yahay oo nin Somaliland la dagaalansan ba aanu ahayn oo waxa jira wada shaqayn guud oo madaxda mandaqada Geeska Afrika Ismaaciil Cumar Geelle Somaliland hadii alla ka dhigayo Ethiopia hawlo noocaas ah socda baa la leeyahay marka kuwaasi kuma muuqdaan miya هذا الدرين كاس دقوج رابو de maanta markii Ethiopia ay waxa weeyaan sida maqaamka madaxweynimo kale ay u soo dhaweysay Muuse Biixi waxa raacday inay ereyada isticmaalaysa ahaayeen jamhuuriyadda Somaliland oo marka meesha ka saaraya de waxa weeyaan hadalka Soomaaliya isticmaashay waxa weeyaan Soomaaliweyn marka waxa weeyaan hadii aan raali ka ahayn Xasan Sheekh Saciid Suldaano hadaan raali ka ahayn de wuxuu dhihi lahaa waxa weeyaan waan waxad gudubteen maanta marka de maqaal bay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya soo lahayd laakiin halka waxa ka muuqata inaanu damba kala ahayn waxa weeyaan soo dhaweynta Muuse Biixi soo dhaweynayo iyo de waxa weeyaan ereyada Ethiopia isticmaalaysa Somaliland si madax bannaan waxa weeyaan ay u isticmaalayso marka absolutely waa macquul weeyaan in Geelle iyo Xasan Sheekh waxa weeyaan arrinkan ay raali ka yihiin laakiin Suldaan waxaan ka baxay kan dheeriyada baan u baxayaa waxaan ka baxayaa waxaan rajaynaynaa runtii in Muuse Biixi arrinkan uga faa'iideysto dagaalkii bilowga dambe wixii magaranayay in ka socday dhinacan amni darada oo way heshiis baan naga dhaxeeyay inaga Ethiopia 2001 heshiiskii inaga saxay ahaa amniga waxa weeyaan labada dal in la ilaaliyo maanta taas wada shaqeynta dhinaca Ethiopia runtii daciif ka tahay marka waxaan rajaynayaa cadeemo kasto maanta madaxweynuhu soo hordhigo in Ethiopia waxa weeyaan ay aqbasho waa ku soo celiyay Saciid Suldaano aad iyo aad baad u mahadsantahay anigu waxaan isleeyahay haddaan dhinaca kale u dhigo dan uu ka leeyahay iyo dadka bala sidaa ka dhigi maayo laakiin waxaan qabaa inaanu xasaasiyad badan ka qabin doorka Somaliland haddii alla ka dhigayo gobolka madaxweynaha Soomaaliya taasaan u dhigayaa sidoo kalena in Djibouti shir weyn uu ka dhaco oo la isu yimaado oo runtii madaxweynaha Soomaaliya uu ogolaado oo uu ixtiraamo heshiisyadii u dhaxeeyay halkii hore ka sii wada haddii alla ka dhigayo maqaamkii Somaliland ee ahaa in loo wada hadlo Somaliland iyo Soomaaliya oo sidaa lagu qoro warmurtiyeedka halkaa ka soo baxay anigu waxaan qabaa waxay mudan tahay in dadka reer Somaliland arrinta ay madaxweynaha Soomaaliya sympathy ugu hayaan waayo waxaynu ognahay madaxweynihii ka dambeeyay siduu Somaliland ugu diriray waa ognahay iyo dagaaladii uu la galay waxaan xaqiiqo ah dagaalka Laascaanood ka dhacay wuxuu ahaa Chalfis uu siyaasay ninka la yiraahdo Farmaajo 8 bilood dagaalku socdayna siduu uga gowsaday kay madaxweynaha Soomaaliya waynu ognahay in dagaalkaasi uu haddii alla ka dhigayo qayb ka noqdo inkasta oo laga yaabo dadka aan arrimaha maaragtay waxa weeye sida mudakarka ugu fikireen yiraahdaan dad ka soo yaacay xamar baa dagaal ka qayb galay maaragtay hebel iyo hebel ahaa laakiin iyada talafirkeeda waxa lagaga jawaabayaa ciidankii ugu badnaa ee Somaliland dhulbaxanti ka jiray ciidamadeedu way ku biireen ilaa xataa baanduulihii labada ciidanka militariga Somaliland baa ku biiray kooxda weyn marka aynu u dhigno madashan
haddii alla ka dhigaya aynu uga hadalno si aynu Somaliland ay wax ka faa'iideyso oo maaragtay haddii alla ka dhigayo cid aan ka kaxaynaynin cid u keenaysa marka laakiin Somaliland baynu sida loogu soo dhaweeyo waqtiga madaxweynaha iyo haddii alla ka dhigayo dowladda Ethiopia meeqaamka sida ay kor ugu qaadeen u weyneeyeen dalkeena taasaynu maaragtay haddii alla ka dhigayo xooga saarayna soo dhawow Cabdisalaam السلام عليكم خيارت ماشي كجرت دمان وايد السلام سلطان كسوماليت وسلامية runtii waa idinka aragti duwannahay haddii aan nahay dowladda Soomaaliya dadka taageera xaqiiqdii anigoo xushmeynayo walaalahayga Somaliland especially ninka odaga hadda hadlayay marka anigu waxaan u arkaa soo dhaweyntu waxaan rabaa inaan xaqiiqda aanan ka tallaabsan Ethiopia waxay ciyaaraysaa waa game absolutely markii uu shirka ka baxay mudane Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland madaxweynadeedu macnaha xataa delay ma sameynin oo hore ka casuumay taana waxay ciidee macnaha aan aaminsanahay in macnaha uu ka faa'iideysanayo shirkii labadii hogaamiye isku yimaadeen oo ay Djibouti lagu qabtay oo ay macnaha og yahay wala socdayayo sirdooni leey macnaha wanaagii iyo horumarkii laga gaaray isku soo dhawaashihii iyo in la jaan qaado in Soomaaliya macnaha ujeedkuna uu ahaa shirku mudane Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya heshiisa uu rabo in macnaha geopoliticalka East Africa isbedelayo waxa radsi ka socdaan aad ogtihiin oo arrimihii xoutiyiinta iyo markuu taano bataaban abiy muxuu damacsan yahay abiy waa iska siyaasad waa run oo idaacadoodii waxay ku dhawaaqnaa xataa newskooda waa run sidaas macnaha markaan aqrinay republic macnaha Soomaaliya macnaha waxaan dareemaysaa in anigoo og waayo waxaa la rabaa historically dowladdii hore sidii ula dhaqantay Somaliland oo ahayd macnaha cidiyaha kula dagaalan oo abiy wax lagula saaxiibtimay oo hoosta looga galay oo carabka loo laadin jiray wax kala ma ahayne in Somaliland aysan lagu soo dhaweynin sida aad arkaysaan Ethiopia in la xakameeyo oo farmaajo looga dambeeyo oo Muqdisho taana waa inay wax ku bedelataa laakiin Xasan Sheekh policy-giisu waa ka duwan yahay waa nin macnaha aanan jeclayn dhaqankii cajuubka ahaa waa nin aaminsan oo ku kalsoonin aragtidiisa markuu kula hadlayana Soomaalinimo kula hadlayo oo aanan lahayn cidii ku dagaalan marka anigu waxaan u arkaa abiy iyo Xasan absolutely iskuma fiicna oo arab laalaadin uu ka waayay xiriirkana waxay ahayd kaliya respect ija macnaha in la xishmeeyo sovereignty-giisa madaxweyne booqashadu ku tagay that is the reality laakiin haddii Muuse Biixi marka anigu Somaliland waa ogtahay oo markay macnaha waxay mudan tahay waan siiyaa oo anigu mar walbaba waxaan aaminsanahay Soomaalida qofka in aanan la cadiifadayn lagu taagnaa laakiin in reality-gana aan ka gaban maadaama dowladda taageero absolutely waxaan aaminsanahay abiy inuu siyaasad dheelayo sababtu uu casuumana ay shirka ku xiran tahay rabana inuu daciifiyo sovereignty oo ah macnaha in la dhaho arag Xasan marka Xasanna waan aqaanayo taageeraan u ahay weligiina policy-giisu wuxuu ku shaqeynayay war sideen ku heshiinaa macnaha sidee xero ku nabad gashaa carab macnaha maamaadii aga maqanay macnaha wuxuu ka hadlay waa Soomaali kala tagtay waa Soomaali codad isku qabtay waa Soomaali macnaha qabiilo ka maxay maamulo kala samaysatay Somalilandna 33 sano naga maqan that's the reality marka waa inaad macnaha dadka isku wadi kartaa waa inaad dadka macnaha heshiisiin kartaa waa inaad sabar leedahay waa inaad dulqaad leedahay at the same time haddana duruufihii ayaa naxambaaraya oo Ethiopia duruufihii inay ka faa'iideysanaysaa absolutely dad waxaan aaminsanaynaa cadowgeena tahay laakiin Ethiopia cadowga tahay soo tama ciidamadooda haysta ma dhulkaaga haysta ma koonfur galbeed kale ciidankeeda baa haysta maanta waa ku sharaxaya adoo mahadsan absolutely waa good question Ethiopia waxay soo gashay baydhabo markii dhacday u kaad Cabdisalaam inaga day baydhabo waxa weyn ma rabna dood ama u sharax la xataa waa qancin la iska fadhiso ma anigu ma rabin ba inaad macnaha cadii ma si wacan baad u wadaa dhagax dheer media aad u kaadid bilaa u kaadi weyn hadii alla ka dhigayo waa ما waxaynu sameeynaa Cabdisalaam waa sax weeyaan hadii alla ka dhigay kulli adduunyadu waa siyaasad waa la ishayaa waa Ethiopia-na waa wadan
soomaaliya daris ilaa arrimo badan kala dhexeeyaan dano iyo masaaliix bay dee ka leeyihiin mantaqada geeska africa masaaliixdooduna sometimes dee ma waafaqayaan masaaliixda fila soomaaliya iyo soomaaliya toona ma waafaqayaan laakiin su-aashaan raba inaan ku weydiiya waxay tahay ma is leedahay maamuuskii ay soomaalida kale siin weyday somaliland oo waad ogtahay somaliland xoog baa loola dagaalamay haddii alla ka dhigayo dhinacyo badan baa lagaga yimi sida dabaysha ayaa soomaalida oo dhan waynu arkaynay ilaa kiina ilaa meel walba hadda qofka muwaadinka ee soomaaliyeed reer somaliland etoobiya sidan u soo dhaweynaysa markuu arko oo qiraysa waxay yihiin iyo soomaalidii kale oo magacyo badan oo aad kolley halkan ka maqasho dee si fiican aad ula socoto ugu yeeraysa yaa nasteexu ma sultaani aad u mahadsantahay waa good question waaye runtii aniga soomaalida waxaan ku jiraa somaliland aaminsan in nidaam dowladnimada waanan aqoonsi laakiin haysan laakiin dowladnimadii nidaamkeedii la timid 33 sano si sharaf leh laisku dooran jiray nabad iyo nidaam iyo wax walba lahayd laakiin reality-ga ayaan rabaa inaan ku saleeyo siyaasaddu aad baan ula socdaa walaalayaal runtii markaan idiin sheego soomaaliya inay midowdo Ethiopia iyo Kenya kuma faraxsana mana jecla especially Ethiopia historically marka inay soo dhaweyso anigu waa wax problema kuma qabo waa dad Soomaaliyeed in la soo dhaweeyo laakiin xaqiiqdii markii laga hadlo Somaliland maadaama dhibaato waana run oo siyaasad xuna lala galay oo 5 sano ayaan aaminsanahay xataa in wax yar naga la fogeeyay waayo siyaasadii aan hadda ka hadlayo oo ahayd ka ilaali inaysan Ethiopia tagin iyadoo tiyaa jirtay ayuu xasan madaxweynimadii ku soo naqday isagoo rabo processkiisa dhaqankiisa inuu ku wado oo ahayd Soomaaliyeeshiisa sidaan ku sheegay kulanka Djibouti markuu dhamaaday inuu Abiy cazuumo madaxweyne Somaliland runtii waa iska playing game waaye macnaha dhibaatadii dhacdana oo maadaama Somaliland aynan ahayn sidii hore oo aad ogeed laascaano dhibaato ka dhacday shirkuna waxaba qayb ka ahayd in arrimihii sool nabad lagu soo rogo in processku nabadeynta uu shaqeeyo oo wada hadalka sii socdo laakiin anyway aniga waxaan aaminsanahay in sida wanaagsan loo soo dhaweeyo xataa waa siyaasad loola danleeyaa filla Soomaaliya aniga filla Soomaaliya maadaama aan taageero marka factiskana waxaan diidayaa inaanan laakiin waxaan aaminsanahay in dadkan dad walaalahay yihiin waana cadotinimo naga dhixin oo siyaasadeennuna wanaagsan tahay maadaama aan taageero u ahay xasheer marka taasaan aaminsanahay waxaad ku darsataa meel wanaagsan baad digtay waad ku mahadsantahay runtii bareerahaaga inaad waxaad aaminsantahay nala wadaagto si wacanna waad u hadashay runtii laakiin waxaa la leeyahay shirkii jamhuuriyadda Djibouti ka dhacay safarkan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wafdigiisu maanta ay ku tageen dalka Ethiopia madaxweynihii Soomaaliya oo haddii alla ka dhigayo isna ka degay waddanka UK waxaan oo dhani waa qorshe isku xidhan oo wada socda marka ma is leedahay haddii alla ka dhigayo arrimaha aynaan ogeyn oo hadda imika aan masaaliixda guud iyo danaha guud ee ummadda oo dhan aan cidnaba haddii alla ka dhigayo danteeda aanay ka dhex waayeen baa socda absolutely macnaha waxaa jirta mataqaanaa qorsho reer galbeedku ay Soomaaliya ka damacsan yihiin waayo anigu reality in waxaan jeclahay ku salay siyaasadda Ingiriiska ayaa qorsho wata Mareykan xataa lagu leeyahay Mareykan maaha waa Ingiriiska maadaama Somaliland xiriir fiican la leeyahay 33 sano gacanta ku hayay oo ay qorshihiisuna ahayd in Somaliland si gooniya aysan u go'in waa aragtideeda Ingiriiskana uu aaminsan yahay waana cadaan doontaa waayo siyaasadda sidii ku socotaa ka dareemaysaa Ingiriisku wuxuu aaminsan yahay in Soomaali la isku keeno even xataa Somaliland aan laga taabanin arrimihii Sool oo aan laga taaban arrimihii Awdal oo siyaasaddu la isku ilaaliyo oo conflictiga la yareeyo Soomaalida sida ugu fudud oo lagu keeni karana Somaliland macnaha loo aqoonsado in iyada looga dambeeyo barnaamijyada waqooyi dhan in Soomaali adigu fikirkan in aqoonyahana tahay haddii alla ka dhigayo ka soo jeeda gobolkii caasimadda Soomaaliya uu dhacay Banaadir maxay arrintaasi kula muuqataa adiga aragtidaada waa maxay madaxweynihii Soomaaliya taageersan sidaad u aragtaa adigu fikirkaasi ma is leedahay waa fikir keeni kara in la isqaato ama haddii alla ka dhigayo la isu soo dhawaado ama micnuu sameynaya mid guulaysanaya ma kula muuqda absolutely waa rajaynaya laakiin allahu aclam inuu guulaysan doono laakiin waa inuu jiraa tanaasul macnaha waa in Somaliland waxna ka soo tagtaas dowladda Soomaaliya macnaha waxa la lacsanaa 33 sano تنازل على العصر قضب كان حتى أقول مهم سن أو سومال أن أقولن ترين ولي جد أي حتى قلته إن الرماح سومالي يلا جوده عضله قضب كان لفرو
حتى ويكون قضبضة تاسع أنا كو عدين إنجليز حتى معناه عن كودا ودمنا إنجليز ريح حتى أنا مثلا إنه إنجليز ريح أيو ونجعلها لكن قضب كانسول مادام كونفليكت صوبح هذا إن لصو يريو معناها الصونة إن معناها سؤالي لأن الله قدم بيو إن باشو إسكو حرنته لكن وحنا من السنة هاي إن سومالي أهم loo wada shaqeeyo lagana caawiyo nabadana laga shaqeeyo dhaqaalana yimaado meeshii ilaan baahi baa dadka isku dirayso ingiriiska xoojinaya xaqiiqdan kuu sheegaya waa conflict in la yaraynayaa waxaa la rabaa dhaqaalaha cunaqabateyntii waa la qaaday marka somaliland iyadana maadaama locally political ka jiro oo aanan muuse qabanin shir maxaa ahayd doorasho معناه إذا waxaa la rabaa in conflictaas la yareeyo oo la xalliyo oo muuse ugu dhaqsiya badan uu qabto marka waa isku daba xiran yihiin laakiin waxay u badan tahay in heshiisyo wanaagsan ay dhacayaan dhaqaale xoogganna meesha imaan doono rajadu anigu aad bay u fiican tahay amisanahay I'm very optimistic وماسنت انت ساربنا cabdisalaam aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa runtii sida wanaagsan aad u dhigtay wadatinimada leh aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa imakana bal inaan u yeedho oday cabdilaahi rooble waa oday siyaasi horta waad soo dhawaanaysaa dhammaantiin jibriil qoobay iyo ragga gadaal inaga soo biiray saaxiibadeena iyo odayaasha mudakarka runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayay hablahaba inoo sheergaraya barnaamijkana oo gaadhsiiya meesha ugu fog gaadhsiiya weliba dee qolyaha reer somaliland waxaa leeyahay maanta dee twitterka magaaladu inaga inoo xidhantay waxa weeyaan dee alla ka dhigayo baryahan waana la tuurtuurayo somaliland waa u dhammaatay aakhirowda haddii alla ka dhigayo marka nimankii maanta haddii alla dhinaca kale aynu kaga soo baxnay nimankii odayaasha ah marka carrada ilaahay nabad wey marka loo yaaba yaasiinkan maqli jiray moog ina yaasiinkaynu u qabanayo marka carrada ilaahay waa nabada soo dhawaada cabdilaahi oday weyn oo dee siyaasiya waxaa tahay oo haddii alla ka dhigayo siyaasadan arrimaha soomaalida iyo dunida wax badan kala socda waxaan filayaa weliba wax badan oo dadka dhalinyaradii aanay ogeyn inaad ka og tahay uun kolley arrimaha haddeer aynu ka wada hadlayno oo dhammaantood laga yaaba inay si isugu xidhiiraan marka soo dhow cabdillah sultan waa mahadsan tahay meesha khiyaar badan aad isugu keento odo jibriil waa arkaa doctor maxamed waan arkaa cabdisalaan oo hadda bahasha meela ku dhudhuftana waan arkaa rag badana hoosay joogaana waa in lasoo qaado maxamed iyo salmaan isagoo noo qabtaan ogaa berigii hore isbeysyada qaabkii hore u qaban jireen twitterka hore midkii hore muxuu ahaa na waan ogaa marka meesha waa lagu dhan yahay horta waxaan soo dhoweynta addis oo loo sameeyey meeshan dabcan waxaad ogaataan ma ahan wax mataqaanaa wax cusub maaha anigu marka xaqiiqda ma ogi ilaahay baa og dowladahanina waxay leeyihiin sirdoon u shaqeeya laakiin waxaan isku xiraya waa dotiska wey waa dhibca sawirada waad aragteen sawirkaaga haddaad soo qaadatood magnifier fiican haysato ood ku fiirsa isagoo dhan waa dhibca laysu geeyey dhibcaha haddii laysu geeyo marka muuqaal baa ka soo baxa sidaas baan wax ku sameeyaa backgroundkayguna de wax badan waa data analysis dhibcuhuna datadii ka mid yihiin marka horta meesha waxaa ka soconaya jirka Djibouti shirka Djibouti waxaan filayaa inuu xoogaa seismic ahaa inuu dhulgariir yar ahaa meelo badan ayuu ruxayaa oo si positive ah iyo si negative ah waa u ruxayaa dowlado badanna dalkan muddo dheer dal wuxuu iska ahaa baylaha ah oo dowlado badan ayaa gacanta kula jira ilaa xad markii dambaba
ay u noqdeen garwadeen u noqdeen oo iyaga wax laga weydiiyo xilligii meel sanaawi reer galbeedku waxay ka weydiinayeen isaga iyo Soomaaliya wax ka weydiinayeen laakiin isagii meeshiisii yaaba iska burburto markii dambe waa kuwa iska hor yimid oo isagiiba hataa dadku ma ogee iyagaa dilay marka waxaan ula dan leeyahay gacmo badan ayaa Soomaaliya ku dhex jira gacmahaas badanna dee way kala awood badan yihiin marka hadday kala awood badan yihiin midba gaar in loo fiiriyo aan u baahana horta anigu uma arko Ethiopia iyo Washington ama Ethiopia iyo London xiriir fiican inuu ka dhaxeeyay muddooyinkii la soo dhaafay anigu uma arko waa dotiska aan isku xirayo weeye marka halkaas ayaan sawir ka soo qaadanaya ee idinku waxba idinma dhaamo xog gaar anigu ma hayo marka Ethiopia iyadu strategically iyadu waxay leedahay qaab istaraatiijiga sida adduunyada kale oo dhan ay u dhaqanto strategic interest ayay leedahay Ethiopian strategic interest waxa waaye Soomaaliya inay noqoto Balkans oo kale wadamo yaroo dhinacyada isku haya marka waad ogeydeen interestigeeda markay ilaashanayso Soomaaliya farmaajo uga saxay dekado in muxuu ahaa dekado in la siiyo marka de Somaliland iyada gaarna ulama dhalan Soomaaliland gaar ulama dhalan danaheedu un bay ilaashanayso wata farmaajo la shaqeynayso la yiri wada hadal loogu yeero Muuso wixii la soo maray kaga shaqeyn maayo fadogtiin hadda laakiin xaaladii way isbedeshay Ethiopia bad ayay doonaysaa marka iyada interestigeeda iyada u madax banaan Ingiriiskuna I don't think Soomaaliya iyo Somaliland wax u dhaxeeya oo malaynayaan in Ethiopia wax macna kaga iibsanayo ama iyada u wakiilanayo laakiin abi wuxuu ciyaarayaa waxa la yiraahdo baytka waxa weey dadkiinan iska luqad qalaad laakiin haddaan anagu koonfurta ku noolnahay waxaan idhaahnaa cantalaay waxa weeye markii malayga la dabayo ayaa cad yar lagu xiraa bir yar oo laaban oo maqaalin la yiraahdo marka halkaas loogu tuuraa lagu soo qabtaa marka Ethiopia hadda ninkan la yiraahdo abi wuxuu sameynayaa baytkii ayuu sameynayaa bayt waa luqad Ingiriis marka wuxuu doonayaa xasan waa ku dhaga adkaada dabcan uma dhaga fududa kamana soo horjeedo laakiin danihiisu wataayo si diblomaasiyad uga gaabsaday marka waxaa loo isticmaalayaa chip bargain ayaa loo isticmaalayaa marka ee Somaliland wuxuu yiri aana ima sii jirin ma doorshaan baa uga dhacay oo berigii uu farmaajo joogo muxuu sidaa ay si kala ugu soo dhaweey waayay ee koor looma soo dhaweyn weey maxaa dhacay Soomaaliya iyada iska burbursanaydo walwal la gaban qabin Soomaaliya deyntii laga cafiyay Soomaaliya bariga Afrika ku beertay Soomaaliya oo dhaqaale badan adduunka ula heelan yahay Muqdisho iyo London oo isku xiran oo qorshaha London ku shaqeynaysa dawladda Ethiopia iyadoo intay burburto baaba'day ku soo hartay kaliya dad is eegayo kala taagan oo amxaaradii gaar ay u taagan tahay qoladii kalena ay halkeeda joogto Tigreega ahayd wax unity oo muuqdo ciidan aan ka dhaxayn oromari oo gaar u qaylinayso madaxweynuhu oromadu leeyahay abi kursigiisa bariyaan la damcay lama damci kare anaga difaacaynay ogaada baashay waxay ku soo ururtay iyo taas u sii dheertahay Ethiopia oo bankruptcy xareysata faylka la yiraahdo markii dawladuhu ay iska bixi wayaan
qaaraamada lagu leeyahay iyo waxyaabaha inay bixiso ay tahay lacagihii lagu lahaa oo deymaha ahaa iyo kuwii kaloo laga sugayay Ethiopia ra'iisul wasaaraha Suucada uu sheegay wuxuu yiri Ethiopia lacag ma haysato wixii nala ka rabana ma bixin karno macnaheedu waxa weeye bankruptcy weeye Ethiopia bankruptcy ku dhacay qoladii masaarada ahayd oo bixisay iyaguna iclaan bixisay oo ugu dambeyntii faraha ka laalaabato ka farxalatay oo tiri heshiiskii ama wada hadalladii ugu dambeyn wax guula waa laga gaari waayay biyo xireenkii weynaa Renaissance Dam marka Ethiopia abi ciriiri ayaa soo wajahay xagga gudaha ah iyo xagga dibadda ah meelaha ay Ethiopia ka soo laaban kartana waa inay heshaa maxay ahayd dekad heshaa marka laba points ayaa meesha ka muuqan karta point saddexaad anigu ma arko in Xasan Sheekh jib la gelinayo oo loo yeero Muuse oo leeyahay Xasanow ama Djibouti aad ama London aad Somaliland anay hoos imaanaysa waxaan anigu raali ka ahayna ma samayn karaan message oo u dirayo waa qodob taas way noqon kartaa qodobka labaad oo isaguna oo inta ka duwanaan kara waxay tahay maadaama Ethiopia dhaqaale burbur uu ku dhacay madaxweynaha Somaliland maqaamkii laga filayay marnaba aan Ethiopia aan looga soo dhaweyn muddooyinkii la soo dhaafay xilliyadii kala dambeeyay daynay Somaliland maqaam fiican ku soo dhaweyso oo bal negotiation laga galo qaarankii Ethiopia kaga soo aaday barbaray bixin weysay iyo sidii looga heshiin lahaa balqaadka xagga wax loola soo degi karo maxaa dhacay Ethiopia waxaa soo wajahaya caqabado kale oo kaligeedna maaha Somaliland iyo Djibouti iyo Suudaan iyo la soo wajahaya caqabadaas maxay tahay maraakiibta ganacsiga adduunka oo ka istaagtay Bab el-Mandeb iyo Gulf of Aden iyo Red Sea Ethiopia xagee wax kala soo degi jireen waxay kala soo degi jireen muxuu ahaa Port Sudan iyo Berbera iyo inaan wax yar oo badnayn oo dhankan Kenya ah marka caqabado badan ayaa Ethiopia soo wajahay maraakiibta soo aadaysa Soomaaliyada kale Boosaaso ilaa badweynta India soo aadaysa iyagu way ka yara dhib sahlan yihiin oo ka imaanaysa Asia badweynta India laakiin hal su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo aqoon adigoo raaliga ah ma isleedahay dhinaca istiraatiijiyadda Somaliland arlada Ilaahay meeshan ay dhacdo ayaa micno weyn waxa ay marka horeba tahay Somaliland mar walba ku kordhinayo keenaysa in adduunyadu ay haddii alla ka dhigayo interest iyo gaar ah ka yeelato taa ma la dhihi karaya marka lagu leeyahay anigu waxaan ka hadlayaa Soomaaliyadii hore marka lagu leeyahay Soomaaliya waxay ku taalaa meel istiraatiijiya dadku inay fahmaan aan rabaa macnaheedu waxa waaye waa dekada Berbera waaye iyo Bab el-Mandeb maanta Somaliland marka meel istiraatiijiya way ku taalaa cidda firi karta ma lahan laakiin meeshii istiraatiijiga ahayd ma aha caqabadu kaliya Berbera ma laakiin Bab el-Mandeb baa xiran oo Xuutiyiintii waxay la fadhiyaan kantaalada dheer waxay la fadhiyaan meel fog gaaraya wararka xitaa waxaan ku hayaa inay la soo xiriireen dowladda ay la soo xiriireen Somaliland oo ay yiraahdeen haddii nala ka soo weeraro Berbera markab ku soo xiran maayo arrimaha sida gaarka ah oon la faahfaahin ay uga wada hadleen Muuse Biixi iyo muxuu ahaa Ismaaciil Cumar Geelle ayay ka mid tahay sidoo kale Ismaaciil Cumar Geelle waa diiday in laga weerar tago saldhigyada Mareykanka iyo waxa meesha ku yaala muxuu ahaa in laga weerar tago way diideen dabcan Mareykanku waa dawlad weyn oo way og yihiin hadday ka weerar tagaan Djibouti ama Berbera kama difaaci karaan
gantaalada xuutiyiinta iyo daroonkan kamakatsiga ah ee laga keenay iiraan laga keenay kama difaaci karaan wixiina wax isu dheermo oo wax isu muuqdo 20 mayl waa wax ka yar ayay isu jiraan wax oo dhan marka caqabadahaas baarshalay waxaa laga yaabaa Itoobiya maanta meel wax kala soo degto male waxa u furan Kenya Soomaaliyadan kale ma soo deegi karto oo hadda Muqdisho kale Muqdisho iyo Itoobiya iskuma xirra wax jido highway weyn la mara male berbera kaliya baa ku xiran iyo jidkan weyn ee mataqaanaa ka soo baxa laamu iyo xagga ka soo baxee ee mooyaala yimaada isagana meesha dhaxo Soomaalidu degan tahay ayaa dhib ka jira waxa way shoftay balaayaa kasha ay weyna ma waajid cad dhibaatada waxay tahay marka boorto Suudaanna kalama soo deegi karto Suudaan iyada ay cunaysa maanta xataa Suudaanta laftigeeda maraakibtii bari hore ka istaageen dhibaato xoog leh ayaa meesha ka jirta marka taasna waa qodobka labaad Itoobiya ay mataqaanaa qodaraynayso in ay kala soo degto berbera oo xitaa ugu yaraan Itoobiya ciidan waxay leedahay badda oo ay dhisatay oo Faransiis ku dhisay xitaa inay ka wada hadlaan waa macquul Muuse Biixi ay yiraahdaan war ciidankaasna inay dekadii adigana way ka xirmaysaa annagana way naga xirmaysaa maxaa talaa marka nooc walbaaba bahasho waa u socotaa laakiin labadaa qodob mid lagu suul daarayo Xasan Sheekh iyo midan iyada danteedii ciriir soo gala sida wadamada ku yaal mandiqada oo dhan labadaas qodob bay ahaan kartaa laakiin wararku iyaga kala cadaanayo xaaladdu ma sahlana aad iyo aad waxaan anigu odoorasay waa mahadsantiin cabdullaahi aad iyo aad baad u mahadsantahay hal su'aal oo caqiibo leh baa kugu soo noqon doonaa oo runtii muhiimad weynna u samaynaysa dadka Soomaalida ninka ku weydiinaya iyo adigu aan ku weydiinayna ku habboon marka aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdullaahi waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Jibriil Qoobi waa sida aad sheegtay halkan dad fara badan baynu isugu keenaa sida caadiga waa in la isu yimaado oo talweynaha Soomaalidu waa inay isu yimaadaan ama ummadda Soomaalidu halkan inay isugu yimaadaan la wada hadlo wax la isu weydiiyo in la kala xirnaado oo hadiya jeeraale qoloba ay meel hoosta ka xirtaa waxba micno badan samaynayso marka waxaan u malaynayaa hadiiba arrinku yahay in la leeyahay dalal shisheeye ayaa laga baqay ama Soomaalida isku diraya ma cadow ah Soomaalidu iyagu waa inaan iyagu cadow isu noqon in haddii iyagu cadow isu yihiin oo aanay isqaadanin in cadow iska dhicin maayaan Jibriil soo dhawow maxaa kaaga baxay waxbaad ka qortay maanta sidii loo soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa dalka Itoobiya soo dhawow Suldaan aad baan u mahadsan tahay madashana aad baan u salaamayaa odayaasha dhan runtii Muuse Biixi maanta si maqaam sare ah oo aad u qurxoon baa loogu soo dhaweeyay airportkii caalamiga ee Bole International Airport Muuse waxaa laga soo dejiyay qaybta madaxweynayaasha la aqoonsan yahay laga soo dejiyo roogii baa loo dhigay jiray waliba markii shirka midowga Afrika la qabanayo madaxda madaxweynayaasha Afrikaanka ciidankii salaanta siin jiray oo calanka baa salaan siiyey waxaa hormaray oo horkaxeeyey mid ka mid ah saraakiishii kaxayn jiray madaxweynayaasha la aqoonsan yahay waxaa la geeyey oo laga dejiyey qaybta VIP-da waliba madaxweynayaasha wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya iyo madax kale ka hor yimid maqaam aad u sareeya ka bacdina waxaa lagu galbiyey baabuurtii wasaaradda arrimaha dibadda waagi hore lagu galbin jiray laakiin madaxtooyada hadda lagu galbiyey ilaaladii madaxtooyadana waa galbisay wadooyinkana waa loo xiray waliba wadada isku xirta aragti kiilo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo airportka geestiisa markuu marayeen waa loo xiray mootooyin baana galbinayay si maqaam leh oo maqaam madaxweyne ah baa loo soo dhaweeyey halka kaliya oo dhaliilo ku jirtay waxay ahayd calankii Somaliland inaan la agdhigin calanka Itoobiya salaantana aan lagu qaadan taasna de waxaa keenaysa sharciyadda Itoobiya kama guuri karto laakiin waxba uma reeban oo kale maqaam haddii cid loo samaynayo booqashadan xogteeda markaan raadiyey waxay ku salaysan tahay laba arrimood waa midda koowaad
abiye wuxuu la dirirayaa shirkii Djibouti oo hawshii asagu hore u waday xilligii farmaajo uu rabay inay tiisa noqoto ingiriiska uu la qaato ingiriiska tiisi la qaadan waaye oo ka leexday oo Djibouti isticmaalay asagoo taa ka jawaabayay buu asna tan ku dhawaaqay maanta casumadan u diray Muuse Biixi maqaamkaana u sameeyay saan xogta ku hayay fiila Soomaaliya iyo Djibouti ba arrintan aad bay uga caroodeen waana ka xanaaqeen aad bayna uga naxeen waa midda taasi waa mid inuu maqaamkiisii haysto arrintaasna asagu saldhig u yahay shaqadii hore uu hayeen uu sii wado oo abiy ku dagaalamaya oo siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya midda labaadna waxa weeye dekedda Saylac in la helo oo Itoobiya ay hesho dekeddaas oo ay Somaliland heshiis kala gasho waxaa la socda waftigiisa aad uga mid ah dad badan oo ka soo jeeda gobolka Awdal waliba beesha Samaroon oo wuxuu rabaa arrintaas Muuse inuu asna meel soo saaro maxaa ka soo bixi kara markii la isweydiiyo waxaa ka soo bixi kara ugu dambeyn in Muuse iyo abiy ay wada gaaraan heshiis dekedda Saylac ah ku saabsan waa dhici karta inuu heshiiskan iyo wada hadalladan Soomaaliya iyo Somaliland dhanka Itoobiya ka sii socdana ayadana Muuse laftigiisu inuu la soo dhaweeyo way dhici kartaa Muuse maxaa dan ugu jirta iyo Somaliland dan baa ugu jirta sababtoo ah maqaamkeeda siyaasadeed ee diblomaasi hoos buu u dhacay labadii sano ugu dambeysay hadda Djibouti tegideedii iyo tegidda maanta Addis Ababa labaduba maqaam kor u soo kacay weey shaqo fiican oo halka laga qabtay weey markii taa laga soo tago Muuse Biixi maxaa dan ugu jirta asaga si gaar ah asagana waxay u tahay nafis siyaasadeed sababtoo ah gudaha uu aad uga karkarsan yahay labadii sano ugu dambeysana waxaan fashil ahayn ma wajahayn gudaha dibadba waxaa loo haystaa Somaliland ninkii dilay inuu yahay oo halka dhigay marka arrintan waxay u noqonaysaa waliba xilligii doorashada soo dhowdahay nin shaqo fiican qabtay oo runtii asaga waxay u tahay guul midda kalena waxa weeye culayskiga kaga furnaa dhanka Awdal hadda isbeesyo badan oo aad arkaysaan oo la qabanayo Awdal State iyo shirar Addis Ababa ka dhacay waxaasna waa wax Itoobiya ay ka dambeysay maal gelinaysa marka inuu meesha iska soo xiro oo baabkaas xiro oo colaadda iska damiyo aad bay muhiim ugu tahay marka ayadana waxay u tahay guul siyaasadeed Muuse shakhsiyan markii Somaliland laga soo tago qolooyinkan Djibouti iyo fiila Soomaaliya maxay uga naxeen ayagu waxay uga naxayaan Ismaaciil Cumar Geelle waa dulaal weyn arrimahana Soomaaliyana asaga aad u jecel inuu ku shaqaysto marka inay Itoobiya soo dhex gasho fursadda uu helayna waa Xasan Sheekh awal mas'uul ma heli jirin oo reer galbeedku waxa wakiil uga ahaa siyaasadda Soomaalida iyo amniga Itoobiya marka abiy reer galbeedka ku dhaga adkaaday oo lala dagaalamayay la karbaashiyay buu fursad ka dhexala taas marka asaga kuma faraxsana waa midda labaad Saylac inay Itoobiya hesho dhabar jab weyn bay ku tahay ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle oo waa sababta uu Somaliland aqoonsi kalama shaqeeyay inay Somaliland aqoonsi hesho Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku hayaa maamul goboleed asaga hoos tagta oo hoos joogta halkaas uu ku hayaa wuxuuna ugu hayaa waa inaysan heshiis caalami ah gelin dawlad noqon aysan ku qabsan dekedaha iyo saameynta geeska aysan ku soo biirin marka taasna darbaaxa kale ku tahay qolada fiila Soomaaliya iyo Xasan Sheekh hadda Djibouti hadii laga adkaado ayagana waa laga adkaaday abiy inay toos u hoos tagaan bay noqonaysaa oo lagu khasbo la yiraahdo la shaqeeya abiy marka dambe taasna dhabar jab bay ku tahay iyo darbaaxa siyaasadeed weyn oo soo gaartay isku soo wada duub arrintan Somaliland si guud waxay u tahay guul siyaasadeed guul diblomaasi iyo guul masiiri runtii oo mustaqbal waxay ka daminaysaa Awdal State waxay u xoojinaysaa xiriirka Itoobiya oo muhiimka ahaa waxay hoos u dhigaysaa colaadii kaga furnayd Sool waxay fariin u diraysaa haddana reer Sool iyo dad qolooyinka hadda SSC arrintan ka sharqaminayay darbaaxay ku tahay iyagana iyo fashil sababta Addis Ababa meel fudud ma ahan waa meel awoodo badan ka soo baxaan halkaas su'aalka weydiiyo Jibriilow sidee sidoo kale sidee arrinta Awdal Suldaanow horta waxay ugu tahay Itoobiyaanku waa niman awooda hadday Muuse isfahmaan inay u yeeraan Sool kuna yiraahdaan joojiyo maamul iyo waxa ka sheekaynaysaan la shaqeeya maamulkan waxa tirsanaysaan miiska soo dhiga niman amarka bixin kara way oo awood u leh
haddii sool ay ka dhaga adeegtana waa niman awooda intay marmarsiyo sameeyaan inay gudaha u galaan gobolka sool ogowna hadda isbuuc ka hor wafdigii Etoobiyaanka ahaa oo militariga ahaa oo imaanayay Garowe waxay dani ugu yimaadeen wax kala ma ahayn warbixin naga siibaliyo sool waxa ka socda arintaas marka dani warbixin buu bixiyay oo laga qaatay Etoobiyaanku marka si gaar ah isha ugu hayaan waxa ka socda Laascaanood haatan Muuse hadday is afkartaan tilaabooyin bay qaadi karaan iyo amarro culus adsabana de meel fudud maaha markay noqoto siyaasadda geeska Afrika reer galbeedkuna wax badan buu ka dhigay ayaaba gacanta ku haya siyaasadda bariga Afrika oo dhan marka taasi ayaga dharbaaxa ugu tahay Muuse marka wuxuu helayaa inuusan Somaliland wixii la isku oran jiray maamul ka soo dhex bixin kale oo la aqoonsan yahay dawladda federaalkana dharbaaxay ku tahay wixii ay isku xirxiraysay ba fashilmay Ismaaciilna odaygii weynaayo iska dhigay waa meesha ka baxay marka ciyaartu waxay dib ugu laabatay Addis Ababa iyo mar kale oo Abiy waa inuu reer galbeedka asna u dabcaa suu shaqooyinkii Malas uu qaban jiray iyo ragii ka dambeeyay ee wakiilnimada ahayd uu qabto hadda arintan uu Abdullahi Rooble ka hadlayo dhaqaalaha waa loogu talagalay IMF shaydeyntii siin lahayd hoos baa looga dhigay meelo kale wax ka heli lahaa waa laga joojiyay imaaraadka oo taageeri jiray waxa la yiraahdaa haki dhaga adeeg buu xoogaa sameeyay waaga horena waa tuu dhaga adeeg xoog leh intuu sameeyay Tigreega lagu kiciyo Addis Ababa korkeeda la keenay markuu dhulka istaagayna waa laga cish haatanna tana lagu sameeyay haatanna markuu wuxuu ku khasban yahay inuu reer galbeedka u dabciyo danahooda wakiil rasmi uu noqdo hadduu rabo inuu kursi fadhiyo asaguna haddii awoodda la siiyo Soomaaliya asagay hoos imaanaysaa waana midda marka nin walba dharbaaxada ku ah geesaha Soomaalida Somalilandna fursad bay u tahay iyadoo deegooni goosad bay rabtaa Ethiopia tixgelin bay u haysaa xiriir amni iyo xiriir dhaqaalaha ka dhaxeeya xiriir fiican bay lahaayeen aad u sareeya mar walba xilliga farmaajo oo Abiy fudayd siyaasadeed muujiyay buu ku milmay siyaasaddaas waana ku soo fashilmay marka haatan inuu aqbalo saameynta Somaliland iyo maqaamkeeda xiriirkeena ilaaliyo aad bay muhiim u tahay arrintan kale dekada Seylacna inuu helo waa danaynaya hal mid kaliya fursado meesha ku jirta oo qolooyin badan ugu jiri karta taasi waa Muuse iyo Abiy oo isfahmi waaye oo uu ka soo laabto waxay kalifaysaa marka waxa diyaarsan cirro in loo yeero oo Etoobiyaanku cirro ay casumaan way awoodiisa kor u soo qaadaan oo Muuse ku karbaashaan qolada soolna inay xoogaa ka aamusaan oo ka dhagaaday aysan ku degdegin oo ay macna iyaga u isticmaalayeen inay Muuse ku karbaashaan inay maalmo ciyaaraan daayaan oo ay dhahan hawshiina wad kuwa awdalna ay sii wadaan isbeesyada iyo shirarka oo Muuse la sii kululeeyay halka marka nafis baa imaanaya Djibouti marka xoogaa ay sii hawsheeda sii wadato marka isku soo celceli waa kubad siyaasadeed oo geeska Afrika aad uga socoto gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsantahay Jibriil Goobay تفاصيل في عن بعض كبر حسي شركة يستودوين ترى ماموس من حواليها السودان لو سنوي ودا تفكير في ماموس آلية هير في سوس الرئيها رئيس الوزراء كحقيقة أنا وزير وزارة الداخلية البلد أيها أنت تودوي أن وحن ربا إن هدي الله كدقة يويرو عبد الله شيخ حسن صحفي السراء ربع الضاه سياسة عبد الله سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا نيو وحوي نرتا جبريل ومحسن يعني وربحتيسا إيو عبد الله محل هذا ويقول الرئي وما شاء الله استقول في كيسا دور ميل وحك فيري أنيقا سودوين تموسلو سميي قابكا وفوقي جبريل وما فوقين لهين وكسودوين لها arrimaha marka dad baa xitaa waxay la aadayeen sheekadii baryahan socoto oromada iyo isku xirkooda maxaa la yiraahdaa Somaliland laakiin aniga dhinacaasna ma sii ku sii fogaadeen laakiin waxaan ka wadaa horta Somaliland mararka hore waliba calanka Somaliland la suri jiray ma u malaynayo in xanuunka uu hadda sheegay ay ku qabanayso meesha la yiraahdo Villa Somalia waxay ila tahay in Villa Somalia ay wax ka og tahay waxaan u sheegayno waa un qiyaas laakiin xogaa waxaan rabi lahaa ra'yiyadeena inay ku salaysnaadaan wixii waaqici ah oo la og yahay of course Ethiopia culaysyada haysta waa tiro badan yihiin tan ugu sii weynna waa culays dhaqaale laakiin kulankan
ninka la yiraahdo Muuse iyo Ethiopia ama safarkan wuu ka horeeyay qorshaha uu ahaa sida aan dad aad ugu dhow ka soo xigtay maxaa leedahay waa laga hormariyay kulanka in kan Djibouti ka dhacay laakiin mar hore uu qorshaysnaa marka ani waxaan dhihi lahaa aan u hambalyeeyno in Soomaaliland sidaas qurux badan loo soo dhaweeyay yaana qofna xasaasiyad ka qaadin waa maamuus sharaf leh qof nin hogaamiye Soomaaliyeed waaye haddana ha lagu sugo runta sababtu waxay tahay gobolkan geeska Afrika barnaamijyo badan oo balbalaarana ka socda sida ayaan dhexdaanba aan ka wada hadli jirnay inay taas ku xiran tahay waa macquul laakiin haddaan soo aruuriyo waa wax lagu farxo sida quruxda badan loo soo dhaweeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi villa Soomaaliyana way ku ayidsan tahay maamuuska loo sameeyay sidaan aniga hadda ka warhayo inta space ku jirteen aan rag la xiriiray meesha maxaa leedahay wax badan xoog badan og marka insha Allah taala waliba waxaan rabaa inaan sii joogo sababta xoog kale dheeraad aan raadinaya oo markaan soo helo insha Allah taala in la wadaagi doono laakiin marnaba maxaa la yiraahdaa yaan laga sababta waxay tahay haddii lagu mashquulo oo dhinaca negative-ka laga eego dalkeena meesha uu yaallo wax dhiga waaye negative-ka